بسم الله الرحمن الرحيم. جنرالكم waa janarkiini, fadlan haddaad janarkan soo booqato subscribe saar, like-tana waa lama horaan, share-tana shaatiga kusoo dhig. asxaabta maanta waxaa idiin wadaa qiso dhab ah oo dhacday xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam. aan idiin kala baxa qisada iyo adinka. waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam, naag muslimada oo lagu magacaabo Tamiimata bintu Wahab ayaa waxa ay guursatay nin saxaabi ah laguna magacaabo Rifaaca. waxa uuna meher ahaan u siiyay beer weyn oo asaga u lahaa. waxa ayna ahayd mid ku nool nolol barwaaqo iyo nolol fiican. waxa uuna ula dhaqmi jiray si wanaagsan. maalin maalmaha ka mid ah waxa ay aragtay isaga oo rag la socdo. waxa uuna ahaa midka ugu foolxun ragga uu la socdo. kuma ay qancin siduu Ilaahay u abuuray isaga oo akhlaaq fiican, dabeecadna fiican. waxa ayna istiri, maxaa ninkan foolxumada badan ugu samrayaa oo nolosheeda ugu dhameynaya. waxa ay aaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayada oo ninkeeda uu la socdo. rasuulkii Ilaahayow, wallaahi ninkeyga kuma ceebeynayo akhlaaq iyo diin la'aan. waa dadka kan ugu akhlaaq badan, uguna diin badan. laakiin ma doonayo inaan agtiisa sii joogo. waxaan u karaahsaday sidaan kufriga u karaahsaday camal. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri, beertiisa ma u celinaysaa? Tamiima waxa ay tiri, waan u celinayaa beertiisa. rasuulka waxa uu yiri, Rifaacow, naagtan kuma doonayso, fur beertaadana ka qaado. waa uu furay. kadib markii uu furay oo ay ciddadii ka baxday, waxa ay bilaabday inay isqurxiso si ay nin kale u hesho. markiiba waxa ay guursatay nin lagu magacaabo Cabdiraxmaan bin Wahab. waxa uu ahaa nin waji qurxan, laakiinse si ay maleynaysay ma uusan noqon. waxa ay bilowday in ay isbarbar dhigto ninkeedii hore ee Rifaaca iyo Cabdiraxmaan bin Wahab oo ay hadda la joogto. waxa ay ahayd mid cayso oo ku dhahdo, adiga ragga la mid ma tihid. waa uu dilay, maxaa yeelay ninka ma ogoleen in ay naagtiisa cayso, waa ayna caysay. isla markiiba Tamiima waxa ay soo aaday Caaisha radiyallahu can iyada oo ka sheeganaysa ninka ay guursatay. ninkeyga waxa uu ilugu dhaqmaa akhlaaq xun, waxaan ku kadsoomay quruxdiisa. isla markaa Tamiima waxa ay ku labisneed qamaar cagaaran. waxa ay ku tiri Caaisha radiyallahu can, waxa ay tiri, gacanteeda fiiri. markay sayidatu Caaisha radiyallahu canhu gacanteeda fiirisay, waxa ay ku aragtay raadil oo noociisu yahay cagaar. kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa gurigii imaaday. Tamiimana waxa ay ku fadhiday kursiga. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu Caaisha weydiiyay, islaantan yay tahay? waxa ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam u sheegtay inay magaceedu tahay Tamiima oo ay ninkeedii ka sheeganayso. nabiga sallallahu alayhi wasallam isla markiiba waxa uu amray inuu imaado Cabdiraxmaan bin Wahab oo asaga qabay. isla markiiba waxa imaaday Cabdiraxmaan bin Wahab oo wato laba cunug oo asaga ka dhalay naag kale. isla markiiba ninkii waxa uu difaacay naftiisa. waxa uu yiri, naagtan way madax adag tahay, waxa ayna jeceshahay ninkeedii hore ee Rifaaca. rasuulka waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam, kuwani ma caruurtaadiba? haa, kuwani waa caruurteedii, rasuulkii Ilaahayow. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri, caruurtan waa caruurtiisii, uuna awoodaa in uu dhalo, laakiin waxaad doonaysaa inaad ku laabato ninkaadii hore. laa wallah, ninkaadii hore ee Rifaaca kuma laaban kartid ilaa Cabdiraxmaan bin Wahab macaankiisii aad dhamisid, adiga macaankaada uu dhadhamiyo. waa in aad la noolaataa ninkaada joogo si walbaba ha noqdee. waa inaad la noolaataa ninkaadii uu Alla kuu qoray. weligaana ha noqon naag madax adag. weligaana ninkaada wanaaji, qofna ha la simin. qanaaca la'aanta mar walba waxa ay kuu horseedaysaa in aad ninkaada aad u jeceshahay aad weydo.